madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga danjiraha dalka Hindiya uu soo magacaabay Soomaaliya. Warkan oo faahfaahsana Dr. Fairandar Kumar Baul danjiraha cusub ee dawladda Hindiya u joogaya dalkeena oo warqadihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu uga siday dhigiisa iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya iyo Soomaaliya waxa ay wadaagaan xiriir dhinacyo badan oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi kan ka dhaxeeya labada dawladood marka laga yimaado waxaa jira xiriir qoto dheer muddo dheerna soo jiray oo ay wadaagaan labada bulsho ee Soomaaliya iyo Hindiya xiriirkaasi oo ku saabsan dhinacyada ganacsiga waxbarashada iyo adeegyo caafimaad oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka helaan dalka Hindiya sidaas si la mid ah muwaadiniinta Hindiya ee jooga dalkeena ayaa hela fursado shaqo oo fara badan waxayna ka howlgalaan gobollo kala duwan oo jamhuuriyadda kamid ah yoolka dawladda federaalka Soomaaliya ayaana ah in sare loo qaado fursadaha muwaadiniinteenu ay ka heli karaan dalkan taasi ayaana gundhig u ah hagaajinta cilaaqaadka iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay la wadaagto dalweynaha Hindiya danjiraha cusub ayaana soo bandhigay qorshihiisa ku aadan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan iskaashiga dhaqaalaha maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada Cabdirashiid Maxamed Xaashi agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ayaa warbaahinta u sharaxay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjiraha cusub ee dawladda Hindiya u fadhinaya dalkeena danjiraha cusub waxa uu horeynba madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyay dhambaal iyo salaan uu ka waday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkiisa waxa sidoo kale uu ka mahadnaqay soo dhaweynta diiran ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u muujiyeen waxa uu soo bandhigay qorshayaasha uu ku horumarinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal gaar ahaan waxa uu safiirku hoosta ka xariiqay xiriirka ganacsi ee labada dal iyo maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay safiirka cusub guulaha shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay wadajirka uga xaqiijiyeen dib u dhiska dalka xoojinta dimuqraadiyadda dib u heshiisiinta adkeynta midnimada la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa